Purchase your tracks. Okay, daawadayaal kusoo dhawaada 252 Guna Corner anigoo ah waxay la jooga my main man from Minnesota Ego Football Show saaxib kusoo dhawaada Idrus waan dhownahay aad baan mahadsantahay kusoo dhawaada saaxiibayaal how are you feeling saadaran santii maanta how sidee tihiin xaaladiina wax kasta aad baan ugu faraxsanahay inaan Gunnar kusoo dhaweyno barnaamijkiisa oo nu kala qayb qaadano oo wax showyo loo baahan yahay as show qof walaalka Soomaaliya oo show sports haysta in showgiisa laga soo muuqdo si horumar badan looga sameeyo dhalinyartu waxay u baahan yihiin hore loo gaarsiiyo loo wacyi geliyo صح si fiican kula soo si fiican especially hada Somali community maaragtay waxaan YouTube waa lagu soo beeray numberyaal badan hadda waa u jeeda CK for example wuxuu helay 600,000 subscriber Shuaib ay six pack la dhahay wuxuu joogaa 124,000 so hadii la fiiriyo aniga bulshanimo we are very fun people moogta markii loo xaga qosolka iyo waxaas iyo showga waa ku fiicanahay naturally so it's very nice sportingna waa si fiican u qiimeynaa from a very young age mugta so important ina si fiican loo sii wado okay so hadda maadaama journalkayga hadda normally ku saabsan yahay waxa Arsenal ku saabsan like aniga waxaan jeclahay football as a whole waa big football fan ahay waxaan ahay very neutral fan ma ihi Arsenal fan TV dad qaar oo kamid ah mugta so aniga waxaa qof maskaxdiisa oo tamaam ah so markaan u ciyaarna shit waxaan dhahay Arsenal maanta way ka talaa saaxib okay so first point ku bilaabeyna waxay tahay waa coronavirus maadaama cudurka hadda adduunka qabsaday oo dad badan baabi'iyay hadana EPL Ingiriiska u jeeda matchyaal badan baa la cancel gareeyay so maxay kula tahay so do you think any EPL la joojiyo mise waa in la wado maxay kula tahay riyadaadi horta shakhsiyan waa ciyaaraha weyn wada jecelnahay in ciyaar la joojiyo ma rabno ma jeclin walow ay ka muhiimsan tahay ciyaarista caafimaadka dadka oo ciyaartooyga in badan laga yaabaa dhibaatadii xagga ka raacday inay familigoodii u geeyaan laakiin haddana qaabka loo controlo coronaviruska iyo ciyaartooyga inta jara testiga laga qaadaa waa ka duwantay inta jara testi laga qaada dadka normalka ah ciyaartooygana inta badan quarantine baa la geliyaa hotel baa lagu xareeyaa marka wuxuu u gaaro oo la ilaalin karo plus haddii aynu idhaahno ciyaaraha alla kansalo hadda weyn ognahay seasonkan wuxuu ku bilaabmay ciyaartooygii oo aan seasonkii bilaabmay pre-season ciyaartooygii may lahayn marka imika kooxa badan Liverpool dhaawacyo badan oo soo gaadhay waad aragtay kooxa badani inda Chelsea iyo kale ciyaartooy badan bay soo iibsatay haddana kooxdii islamay qabsan wali ciyaartoodii meeshii la doonayay ma gaarsiisana taana waxaa sababay kooxdii pre-season lahayn oo ciyaaro badan leh marka haddii la yidhaha imika kooxdii ciyaaro 2 week 3-4 week la kansalo xagga dambe lagaga daro waynoogna waxaa soo socda koobkii Euro 2021 baa soo socda koobkii Latin America soo socda Olympics baa soo socda koobkii Africa soo socda ama waxaas oo dhan baa jira ciyaartooyga ma helayaan time ay ku nastaan on top of marka kiwa loo gudbo haddana markiiba waxa ku sii xigaa inuu horyaalkii bilaamo haddana World Cup 2022 baa ku xiga si fiican hadda so marka dhibaatay noqonaysa haddii la yiraahdo ciyaaro badan dib loo sii dhigo tababaryaal badanna way ka cabanayaanoo they would rather in la ciyaara hadda maadaama wixii la controli karin then in la fadhiyo ciyaaraha laga fadhiyo dib loogu daro xagga dambe marka shakhsiyan waxaan qabaa in ay fiican tahay ciyaaraha la sii wado laakiin qaabka ciyaartooyga loo controlayo la sii adkeeyo ciyaartooyga markay gurigooda ka tegi lahaayeen maadaama dhibaato jirto ay hotelka deganaadaan si looga warhayn karo mayse waa kugu raacsanahay I think a lot of waxa soo baxay tababarayaal badan oo dhahay waa very selfish waa in la sii wado waa coronavirus jiro waa in la joojiyo laakiin hadii firis tababarayaashaasi kooxyaashooda waa kooxyaasha ugu liita liiga dhexdiisa for example West Brom waxa uu jooga gaaygi Sam Allardyce waa relegation master hoshiis waa relegation bariskiis waa relegation saaxib that's the football he knows alaabta waa route 1 madaxa laga gelina finish no tiki taka asiga iyo Bruce Brucey oo maxaa la Newcastle coach Steve Bruce waxay taagan yihiin I think waa selfish waa ma fiicno waa qaacinimo in la wado kubadda cagta laakiin fiirisid coachyaasha kala kor lacag ay haystaan they do testing so and also position ko the league way fiicanta mugtahay so qof walba wuxuu fiirinaa how they can get advantage ay ka qaadan karaan laakiin kugu raacsana hada waxa sida uu sheegtay koobyal badan adduunka soo socdo oo important ah in the next 1 year and a half
so ما فينا إن مارك الجوجي لس هذا الله بلاول الجوجيو هذا نادي في رس حتى بنوني كوبدا عكت ندن كذي ما لها without the fans و very boring و empty أنا هذا ما دام كان بودي وجو أرسنال مارك لسود دايو normally watching far because I don't have any energy in our first half. مقطع so the problem is no fans didn't ماله there's no passion هذا on top of that as well team kick هذا وسوكا على لكن Arsenal were very untrustworthy team مقطع وحقبنا لبا personality وحنا هي bipolar I'm telling you Arsenal were very very bipolar مر سفي عنا عيارسا مر نح مرنا وقراب مقطع هذا اللي فيرينا how we spend our money ما نقارن سيدا لعب spend قرن وحنا هاي نندق مارتي أو very old أو style في عن قبل لكن لعبت بنجي لعب في عنا كوجرت لكن وحوتا أو إسخاذين شاتي بينكي فنانة مصر يلو وحوالن هاي صاحب وحن محاوي ما قاقصو قدتها كان 50 مليون كان 20 مليون بلتي كان 10 مليون هذا نجاي قال ليستر بوجوده ليستر for example for me ليستر هذه اللي في تقوح في عن مركل اللي هو buying player وحاسة mentality وضع very good جاي actually وجوه هذا كور أو transfer كي وحاسة مين أي كور كلا صوغ هذا because وحاسة ما محل لها scouting system في عن بل الرياشة هذه في رست وحكي صوغ ذان 15 مليون 25 مليون هذا أنا وحسي ذان 85 75 ده كان يتي هذا أنا بلاير كي كينا واد بلاير في عن موقت أو قبض passion إنه حكوا عيار وادت أو باهن لكن أنا جو حاسوق أنا every time injury prone إيو وحاسوستا ماركو أرسن فينجر جو حاسوق أنا كيم كالستروم دبي بكو عيارة football on the beach وحلوك هنا جاري قاعد صاحب نبرك هاجب سنة he was finished he was signing in a wheelchair صاحب ويا بناي أرسن فينجر I believe today this player is very good I think he lacks consistency وحرا فينجر وكذا ماته finish أبتيجي قلنا ماركو فييرا إيو أنري بحي أبتيجي قحورة أرسنال صاحب ويقول ما تي درينت ولا لا لابي صاحب new generation كوبد متقنين واتيكا تاكا 1 2 1 2 وحتى قلنا إذنك beautiful football عيارتين لكن كوب ما ورايني سموليين ماركو فيريو وصح تاسنا كسي ودنا ماركو أرسنال شيء كذا كجرنا ما حكوا لطه هاي situation كمسعود أزل do you think إنه do you think he deserves سيدا أو مارك الله رقم مايو سيدي ماركي أو the way he's been treated at the club. horta Oziltiis haddaan eego laba qaybood haddaan u kala saaro qayb waa qaybta ciyaartoy ahaan weligii lagu dacaydeyn jiray haddii la yidhaahdo Ozil waa lady Ozil ma ciyaartoy like 50 meters intuu dib u soo ordo amba 60 meters dib u soo ordo kubad ku soo difaacaya ma ciyaartoy tackle ku sameynaya ma Ozil waa ciyaartoy haddii uu haysto ciyaartoy fiican oo orod badan sameynaya kubad fiican sameynaya Ozil waa ciyaartoyga ugu badan ciyaar ugu badan assist ugu badan sameeyay hal ciyaar gudaheed Champions League kada eegto qaab ciyaareedkiisa uu ciyaaray when you go back to Madrid time kii uu joogay Ronaldo iyo Benzema iyo Higuain iyo Di Maria haystay Ozil cid lama ciyaari kareen صح cid goolashu salaxayay every season dhinac kasta ka salacay goos Ronaldo haystay laakiin xaggan ciyaartoygu ku haysta ma ciyaartoy dadaalkii Ronaldo oo kala leh strikeradi marka Real Madrid uu ciyaari as a team ki Real uu la joogay iyo Germany markay 20 qaadayeen tankii isku awood maaha Germany 2014 kan dhahay World Cup ka iyo hadda isku mid maaha marka Arsenal xagga ciyaarteedu maadaama ciyaartoygu ku hooseen ciyaartoygu la ciyaaray hoos buu uga dhacaya taas waa midda koowaad laakiin midda labaad still waxaan qabaa Arsenal wuxuu ciyaaro oo dhan oo suluka fiican marka hore Arsenal ay haysanin kubadda because imika Arsenal ina daawat Arsenal weligeed ma ay cross maanta way tata wuxuu crosses kay sameeyeen Arsenal weligeed cross may soo dhigi jirin dhaxda ciyaarta ka geli jirtay so since when like brother ciyaartoyga imika haystaan ma ciyaartoy dhaxda kubad ka baasi karaya haddii banta maybe Daniel Ceballos ay ugu fiican kubadda inuu dhaxda laga sameeyo laakiin haddii Arsenal imika marka hore number 6 meesha hadda waxay keentay Partey haddii la keenay Ozil teamka haddii la soo geliyo hadda ma loo baahnay inuu dib u cararo صح good combination فعلا they have good player kubadda soo burburinaya فعلا waxaan qabaa it's more politics waxa lagu haystaa because China iyo Turkiga iyo waxaas lagu arkay it's more about that ciyaartiisa waxa lagu haystaa Ozil
ما يصير عم كوكر عصنا I think he's a very good player لكن وأوزيل وإنا the right condition وإن لو عياسي we know ما أرضى لكن أرد كيسنا وأرد funny because مركا على في statistics كا وحو أمدي هاي the top 3 guys or kilometer كا مركتي so his rates are very high لكن مركا أركي سيت he just looks lazy لكن هذه لفري حتى أرسنال لا midfield كان يعني هو easy إلى تهاي so بارتي هدو injury free هاي أما أوزيل وعياسي كرتا no problem بالله حاجو ساكا يا مارتينيلي هذيك يسوا two young players very very good لكن the problem is هذا وحاي سنة تيم كان واحد كجرو too many dead wood مارت والواحد انتي I'm telling you what they're not very good players مستافي 35 million ومقلمه داني سبايوس وحكو كان again loan last year 2 games وصف عنه عياري لكن the problem with him is ورك سدا instead of one ball into صلاح لهاي I don't know ماشي ورك سنة صاحب وفري بيجو جوجا he's like let me reverse قدال هورك parking أو كده جرا he's confused Spanish لكن وحال روات تيكي تاكا مكتا give and go شيء كذا لكن سيجا one pass وسميكرة أوباميانغ وأردي لكن جاي نتي وروريك هذا واحد جوجو محمد اللني بشكتاس أو ولا ديمي he went on loan هذا فانياش وحكي oh my god he's amazing again واحد listen محمد sideways جيسها أوصل على مركزته مركز سيجو direct لكن it's not his job character كيسنا كم جست إنه مارتي playmaker هاي so I think Arsenal أنا جا مارتي حبض اللوبت إسكجا رفناي because we have Özil هذا هذه الفيريو bench again حتى was not bad لكن you have to play حتى I'm happy إن العياسينا مارتي المهير سميث رو عمل أما بوكايو ساكا مارتينيلي because that كانت وضد باهن ويريهن ودلايان ما يقانين attitude وحاسيتي مارتي كلهم إيمانيان هذا هذه لده لو سيجود بساس أنا جو حالته هاي ميكال أرتيتا إنه شقادة بكوين تهاي in my opinion because Arteta no experience Manchester City وحلا وحو هاي جاي مارت كونسكي إيو كوبدا ماشي لقو وحاسيتي هوشي سيهد so how can now transition سأوصل ميكرتا أدقو Manchester City or number 2 أما coach ahead هذا أرسنال جوكتا أرسنال معهم تيم مارتي أو foundation كذا حب بدن جاي ياش مارتي أرسنال كنترول ستان كرونكي وأمريكان وادد مارتي لعبت كل they don't want to give any money هذا like and the funny thing is as well تاجرياش إنه وحي قوان amnesia ومارك ماذا حوح لقاعد رفضه وأنا واهل مامتي you don't remember anything so fans كأنه amnesia 101 يو bipolar was commit صاحب the same medicine so جايالا أركز online oh my god we're back we're gonna win the league هذا صاحب is dodgy we won 2 games هذا واحد جست ليغا راينا where which league هذا on top of that Arsenal هوسنع إذا وحي إيه for 16 years ما هن واحد بيلعب مقطع مركي نلقسو جوري هايبري وحيد وات صدق إيشان كون قف على جليجري و very small لكن الواحد سن بلاي ريال في عن standards كوا very high وحنا الله Emirates كلا بيلعبها because we want to compete with كوحياشة بايرن مونخ عمل وإنا لا ترترما بايرن مونخ وهي أنا we're not even on the same level so Ben أنا نقول شيء هذا نوحل الله the reason why we are selling مارتي our best players Van Persie I was very angry واحد مركز واير right I was very angry Robin Van Persie our top player the captain هذا نمركو هذا BT interview لسه وحده هاي he was never offered contract لما سينين can you believe your captain so then يشان ما فرتن goal a season this guy will assassin he's deadly you know and then Arsenal وحكوا جيران وحده هاي وحالة to say payslip how much money in the bank يوحاسيتي وحده I don't care صاحب أنا وحربا Premier League إنا وينجرايو أنا نروح حكوا جرتا look at this 2.5 million% سنة كانت 11% باكر وكعني حاجة العكتة بلا 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 والواشي كدير so أنا جو حالة هذا أرسنال اسمه هذه إنه كسب سنة هاي عيالك ير سدح عن عيال الشيء سميث رو ساكا يا مارتينيلي يا كل في عناتا ده صار they have a bright future I think all of them saddexdoodaba way haystaan but Saka aan qabaa inuu noqonayo ciyaartoyga ugu heerka sareyn doona maadaama yahay ciyaartoy loo isticmaalo inay kala positionno badan left back uu ka ciyaaray wings uu ka ciyaaray right wing left wing and I believe number 10 uu ka ciyaari karaa marka waxaan qabaa inuu yahay ciyaartoyga saddexdooda ugu sareeyo walow Martinelli aad mooday inuu yahay ciyaartoyga soo kiciyay since the day Chelsea ka badinayeen ilaa hadda intuu ciyaaraha ku soo noqday aad mooday ciyaartooyda soo kacday
marka waxaan qabaa Martinelli laftigiisu inuu meel sare gaarayo marka saddexda ciyaartoyba Arsenal hadii lagu daayo waayo markii ku Willian iyo ay ciyaarayeen Bebe iyo kamid Arsenal kama muuqatid inay waxay laakiin waxaad moodaa saddexdan yarar inay u ciyaarayaan kooxda oo garanka ku dhimanayaan si fiican waxaad moodaa inay u ciyaarayaan inay shaqaysanayaan oo lacagtooda u ciyaarayaan sida hadday si fiican u ciyaaraan iyo haddaan u ciyaarin they don't care 100% yar haddii lagu daayo garoonka waxaan qabaa Arsenal inay meel soo gaarso still fikradayda markii Premier League bilaabay waan xasaadaashii Arsenal markasta waan ka sarreysiyay Chelsea iyo top 4 top 4 u tartaraysa aan ku daray anigu waxaan Arsenal waxaan ogahay positive because still 3 points kooxda Arsenal intaas oo laga badinay صح 3 points bay Chelsea ka dambaysaa only 3 waa maxay because hadda nimanka 220 milyan bay qarash gareeyeen si fiican Arsenal ciyaalkoogii hadda Arteta I know inaanu experience lahayn but still waxaan qabaa tactically inuu Lampard ka fiican yahay hi definitely I think Lampard because Arteta wuxuu ka faa'iideystay maadaama Pep Guardiola la joogo mugtahay so I think he picked up some good techniques waxa uu ka soo qaatay like in the Firio I still don't trust him mela aniga waxa rabay at least coach waxaan jeclahay oo Southampton Ralph Hasenhuttl guy very he is very good that guy is going to go yeah so for me hadii Arsenal marat kor edu amal ama Vinay kor ugu kaabayaasha ahaa lahayn waxa dhihi listen Southampton halaga keenay guyganeti lacag yar siiya he will be bringing youth iyo wuxuu isku mix gareynaa experience like hadda unfortunately Arsenal waxay noqotay retirement home maaragtay guri oo lagu talgalay dadayaasha duqa ah oo maaragtay raashin cuni karin I was like no William market 3 years he said deal 3 years he said lacag he said I was like why Chelsea ba hayn lahayd 3 years sida saaxiib waxaan aqoonay old age home maxaa la wheels on meals mise meals on wheels raashinka lagu keenay gaari gacanka saaxiib dadkaan ay tabsaco karin xafaayada loo xiraayo waa situation waalan saaxiib David Luiz Petr Cech oo madax laga jibiyay he doesn't even remember his own name haddana Willian lagu soo daray haddana hadda waxaa noo soo socda I heard Diego Costa waa free agent I guess Diego Costa trust me with this Diego Costa do Arsenal bu soo biro for sure Arsenal top 4 ko soo galaysa Diego Costa I like him waan jeclahay laakiin maadaama Chelsea soo ciyaaray oo hadda duq yahay oo very young he's still 28 29 are you sure yeah he's still 28 29 I think so Google aku dhufanaya saaxib guyganeti that is wa fake saaxib sugbo yeah I think that is what fake no had a 30 move garin that guy I think so I'm telling you South Americans even Radamel Falcao waxa lagu qabsaday yeah I heard about that too yeah okay let's have a look at his age okay wow wuxuu dhashay 1988 so that means he's 32 waa 32 jir Diego Costa yeah 28 29 okay 32 half season even half season or season and a half I think Arsenal can waliba he's English waxaad u baahan nin fight ku jiro Arsenal ma haystaan striker I like his style is waa jeclahay laakiin asiga wuxuu qabaa hamstring injury Atletico Madrid hamstring that's one bad thing anigana Arsenal over the last 16 years waxaan aheenin hospital loogu talgalay ciyaalka ama ciyaarayaasha oo maaragtay oo protein cabin oo diet-kooda vegan iyo waxaasaytay loos cuno there's no one oo hilib cuno saaxiib every 2 minutes a new player Arsenal soo galato wuxuu fuulaa medical table saas saaxiib saaxiib partay wuxuu dhahay Arteta saaxiib lugteeda waa dead waa lagu sireex waxa la go ku sii orad that was embarrassing have ugu weynayd like hadii la fiiriyo aniga maadaama hadda ku jirna situation terrible nahay I don't know like teams like Tottenham iyo waxaasaytii I still feel inaa kasi fiican nahay mentality because maadaama historygeena weyn nahay laakiin haddii Tottenham rayso the Carabao Cup saaxiib waxay la ciyaaraysaa Manchester City waa very difficult game I think we're raynaysaa I think shaqo waxaan qabaa Tottenham way raynaysaa because Mourinho knows how to play finals marka finalkii hadii la tago waxba ma u baahna isagu waxba kama xishoodo wuxuu leeyahay gebigiinaba difaac iska jooga then contract haddii kale penalty gaarina that's all marka ciyaartaas bus driver
يا دفاعي سيس كجري هذه بنالتيز قالوا بنالتيز هذه كلنا وحويان 1-0 or 2-0 وهذه أركي ما أنت دويت جيم كبريمير ليج 2-0 بيبقى بديه so man 7-0 I think yeah, something like that. Yeah. To be fair, counter-attacking team, why the only people Harry Kane and Son. البوزيشن وحنا كبدا وقات بريجين وقات دونتان أنا 3 points so You know, هذه في Mourinho أنا كم جعل ستايل كيسة like هذه لفيريو مركي لها efficiency يوح مركي لها winning mentality مسكحديسة وهرسرة جاي he doesn't care وحيد هذه كده شغلي اسمعهن like the only problem in that final هذه Man City ومارتي strong team سماسو هذا Man City أو تيكي تاكا كيفن دي بروينا ستيرلينغ جوجو جوندوان so I think maybe هذه لها passing Barcelona style هذه لها of course like مركي لها counter attacking Tottenham too much powerful unbelievable the game مركي نلعب يرتا أرسنال واو صاحب واحد من الدبيبة مركي صون مركي يقول لي I turned the TV off صاحب واحد guy هو حكوا صوبه another country كوبا ووتا holding your defender كجلال أصعد جلال هكتور بيلرين أني وحيلاتها إن لو عليو برشلونة ما دام هذا اللي I heard transfer إنه برشلونة إنه ربع هذا صاحب باي like in transfer وحكى لنا after the Liverpool situation okay أرسنال وكسي يقول بينا هذا Liverpool position كذي season كان season ككوري مركي راين معك ولا do you think intensity يحوق ولا موتان بس ضعيف for sure intensity كذي هوس بود عصني برتي هراي تاجنا سنة كورة ما تاجنا plus Liverpool دواعية بدن بسوا قاري دواعية دو كبدن هاي مركز الله يبغى تيمك كله وانضايو كله وكم قيا هاي ولو ربع يارده وعياري اللي قالوا لي تبان جول عيارة الليد سافر يسد إحدى جول كقبدني وعياري تيسو أستون فيلا تدبده كقبدني سلا بده وعياري واحد مودة سد هذه عيارتوي ليفربول يكون عيار كرتي واسد هذا هره إلا بدأ دفاع كورنياش كي معنا صح مركب مودة إن سد هذه هره عيارتو ده هوس ودعدي وليفربول أنت بدنا واحد يكون دفاع على كوره كله بوكس كود وهنا يكتم هذا حاجة وبدأ يحلق عقو قاعدة تود ترجوش كلها لسه صح كورنيين فهمينه إن رئيسك قبضون لبضان إنه كورنياش كسو عررية لأن صدق هذا إنه مركع عيارته دوي كان ساين جول دنيا صح مركع داو عاسو يمد وتياج الكاندروي كينين هذا يستجنا داو بدنتي وركو مقنع هذا وسوكعي ونسلها هذا تياج عاتما ليفربول ورد هذا وضع عاتما قبضه I don't think كوح كسو لواني ساين جرتو oh yeah قاب كيو تياج أنت هاي صاحب واو كوي أو تياجنا كسو دري تياج هو ودي صح marka dhaawacyadaa soo gaaray iyo pre-season-kii oo ka maqnaa iyo ciyaartoygoogii iyo dadaal badan ka muuqdo awgeed baad moodaa inay levelkii hoose uga dhacday sanadkana Premier League uu ka adkaan doonaa sanadkii hore hadday qaadana dhibco badan kuma qaadayso waxaan malaynayaa last 2-3 games waa la isla gaarayaa saadaashay anu markay saadaalinay Premier League bilowgii laba top 2 ba noqonaya Manchester United oo Liverpool labadaas aan islaahay marka Liverpool yes waxa hoos u dhacay ku timid laakiin kooxii kale ma iyaga laftigooda ma moodin inay in badan soo ay ku dhaafi karaan ay jiraan wali marka laga ما وكو رأسناهي ما دام أنا قلنا حيلاتها ما دام كورونا فيروس وحاس هذا الجرو بالريال بدن هذا مسكح هذا mentally كوبدا ديار أمها because every time market training هذا وأنا سانك واحد لقى every 2 days وحاسيت مكتسر هذا عيال أوجو بقولي so I understand market بدن كود they're not ready to play لكن intensity yes and also waxa umalena dalka waxa dalka waxa ki imaanaya style kooda sida u sheegtay style kooda very very high pressing so hadii defender tahay oo rabtid gadaal inay ka ciyaartid from the back way kaada wardaan Mane Salah waa lagu borsanaya hadana also sida u sheegtay Trent Alexander-Arnold iyo Robertson game kooda waa important u tahay Liverpool labadaas hadii oo maaragtay jail la geliyo one game difaac lagu xasuuqo the team cannot go forward مقطع even though like أنا جو حيلاتها however I know a lot of Liverpool fans صاحب لا هي لندني وحاسيتي لكن وحي تاجنين إيكا محمد صالح إنه يهي the most important player for them أنا جو حلا صاحب هو جوك صاحب وساديو ماني وجايجا مارتو underrated جايجا نيتي Augsburg Southampton Liverpool this guy was machine like in every day ما Salah Sadio Mane صاحب يودي ذا صاحب for me Sadio Mane and a lot of people are pushing guy حتى
waa the most important player for Liverpool. He defending wuu ku fiican yahay one on one. Waa strength xoogiisa waa qatar, speed, goal scoring. For me, Mo Salah, I don't think حتى إنه yahay very clinical. Sometimes Benoniga waxaa arkaysaa wuu laadaa xoog, way iska galaysaa. Lucky, like asiga wuxuu ku fiican yahay waa nasiibkiisa waa very high. Marka loo Sadio Mane nasiibkiisa iyo Sadio Mane 60 yard oo kasoo shoodi karaa waxay galaysaa Rose 7 moogtahay waxaa la dilaa birds iyo waxaaseetii laakiin Salah wuu soo shoodaa from 100 yards waxay ku dhacaysaa laba difaac madaxiisa kabacdi qof jilibkiisa kabacdina xusulka kabacdina sanka in saaxib waa nasiib uma leh marka la Sadio Mane like hadii la fiiriyo styleki iyo teamku wuxuu u sameynaa iyo teamku waxay u baahan tahay waa hadii la Liverpool who's the main guy for me Sadio Mane without a question. Yeah, recently dadku u eegayaan amba dad Ingiriiska waa presskooga waynu aragnay sida yihiin. It's all about the goals. Hadduu goolashii uu dhaliyay Salah because Commander wuxuu jibiyay recordkii Ronaldo intuu dhaliyay goolasha Ronaldo dhaliyay wuxuu almost 7 games malaha ka yar buu ku dhaliyay Salah. Marka waxay it's all about goals. Haddaad goolal badan dhaliso nasiib amba nasiib la'aan kugu dhalato that means you are the main guy. That's why Salah kor loo soo marinaya but Mane anigu baan kula qabataa waan kugu raacsanay Mane anigu waxaan qabaydaa Van Dijk xaqi looga soo sharaxayay inuu laacibka adduunka noqdo amba laacibka Premier League sanadka ugu wanaagsanaa inuu ninkaasi noqdo imika markii Henderson laacibka Ingiriiska loo soo sharaxayay ugu wanaagsan aaway Mane xaqu ku maqnaa marka muslimnimo iyo madow cunsurinimo badanna meesha wali waa kasii jirtaa ciyaartoyda loo sii dhigayo Mane laakiin haddii qab ciyaareedkiisa la eegayo إنه ماشي كسر أيه إنتاجية هذا. سفي عن إنجليز كبريس كماركي فيرست حتى عنصر النمو number one. For example, Phil Foden Manchester City وحنا أقرنا newspaper like 1 year ago. هو يدي سووا صوغ ذي غوري أو جوجو بقول كون عمل مقطع. So هو يدي سووا صوغ ذي Marcus Rashford وحو سمي exactly the same thing. هو يدي سووا صوغ ذي غوري. Like Marcus Rashford وحلا ما Raheem Sterling sorry. Raheem Sterling وحلا tattoo وحو لوكت كو هايستا أو AK-47 لوكتيسا blah 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 blah. لكن كان هو يدي سووا حوجة كان هو يدي سووا حوجة was the same. لكن all the time وحنا وقفكم مذوقة وجانجستر وأساس محا tattoo أو قري لوكت وقرتي. How many players أجروا يوروب كعيارين tattoo يال وحا أجروا أو نازي إيو هتلر إيو وحاسيتي سكوت جوان إيو the devil إيو وحاسيتي. No one says anything. It's crazy. وعنصرنا 101 صاحب سفي عن. Okay, the next thing January ما جوجنا وترانسفير كوجيد هذا January transfers وحا أنيق وحيلات هاي January وحا وقعنا بوا panic buying. مركي واحد وقتها هاي بوا panic buying. شوب كجلسة وكورونا tissue ما ربطان بس تشونا صاحب. You know. Yeah. So هذا قف كلا كان January. I don't think there's been ever off January لسوقه أو كالكيعية team. Unless we have Bruno Fernandes. Okay, Bruno Fernandes وقعت تاس. Okay, Bruno Fernandes هو لاعب عالي يعني. That guy Manchester United وحكوا سوقه back door. هوسو وتا penalty جنا والله لنا finish. That's it. His job is finished. For me, Manchester United, Bruno Fernandes is very very lucky. In a high stand, a player like him because he scores goals. Playmaking كيسوا خطر وحوله شاب أنا مرة سوى عياره شابي ألونزو هذا بوكس كود نحجلايا he scores goals he has everything هذا on top of that as well Paul Pogba سنة كانت agent كيسوا الوقعي Gary Neville أوجدي I don't know how to في Sky Sports Gary Neville Paul Scholes وين حناقين وحدهن مينو رايولا مانشستر يونايتد وإنه بنت صارته agent كانت agent في عن معهن because وحوله هاي Paul Scholes is not sorry Paul Pogba كم فرح سنة situation كأم حالة دي مانشستر كوسبسنتها at the moment. Like the problem is Manchester United fans Paul Pogba محلها قارته وحي يقول لي too much problems you know. Francisco مركو عياره و he's free. Different yeah. N'Golo Kante, Tolisso, وحاجوجو Payet, وحاجوجو Griezmann, Matuidi. There's so many good quality players. Like Manchester وحي ربان this guy 89 million اللي قصوا بحي ووح كسر طابته وإنه الذهب يسكب بدشوا. It's what impossible. Okay, so مركي الله in terms of transfer January transfer كوحياشة كولتا هاي who do you think
yaa u baahan dhismo fiican xagga la dhaho transferka sanadkan Liverpool markaynu ka hadlayno muhiimaddu waa top 4-ka waxaynu eegaynaa kooxaha u tartamaya kooxaha waaweyn top 6-ka haddaynu idhahno hadda top 4 ku baabay top 6 baa soo baxay Arsenal oo kale imika still waxay u baahan tahay difaacogu weli waxaad moodaa inaanu dhisnayn weli sidoodii hore ahayn waxaad moodaa weerarkooga striker kale imika seen markii hore ka hadlaynay Diego Costa oo kale tiimka wax meel weyn u gaarsiin karaa hadduu 6 months ay soo qaataan oo caafimaad qabo Chelsea oo kale waxay ka badisuun ciyaartoy tiimamka ka badisay waa tiimamka halfka top 12-ka ka hooseeya actually hoos baaba u soo dhacdo top 15-ka maadaama maalintii Arsenal la ciyaartay Arsenal ay 15 ku jirtay hataa imka top 15-ka wixii ka hooseeya bay ka badisaa marka Chelsea oo kale difaacooga hoos buu dhacayada Thiago Silva koruu soo kiciyay laakiin still waxay u baahan tahay difaac waxay u baahan tahay dhex because Chelsea imka waxaan ka hadlaynaa Bruno Fernandes even Arsenal dhexdoodu gool bay dhalisaa Chelsea dhexdooda saddexda nin dhexdooda uga ciyaaraya gool ma dhaliyaan imika Jorginho waa haddii penalty dhaliya mooyaane no penalty imka ma dhaliyo Kante ma ciyaartay goolal badan aad ka sugayso Kovacic ma ciyaartay goolal ka sugayso marka kooxdaas oo kale waxay u baahan tahay imka Manchester aad arkayso dhexdooda goolal bay dhaliyaan City dhexdooda waa sidoo kale Liverpool Arsenal marka waxaad moodaa inay Chelsea u baahan tahay nin dhex oo gool dhaliya iyo nin difaac labada nin hadday soo darto kooxdooda ay soconayso hadday striker kale Giroud hadday ciyaarsiiso Chelsea they're good laakiin waxaad moodaa in maalinna uu ciyaarsiinayo maalinna uu ka saarayo Chelsea u baahan tahay marka difaac iyo dhexba Arsenal difaac iyo weerar bay u baahan tahay dhexdooda I think they can do it hadduu baa caafimaad qabo Manchester United hadda way fiicanta waxaad moodaa ciyaartoodii inay aad isku soo bedeshay oo dhexdoodii soo xidhay because marka hore waxaad moodaysaa inay dhexdoodu yar liidato marka hadduu Cavani ciyaarsiiyo waxaan qabaa Manchester United way ciyaari kartaa seasonka san way ku dhamaysan kartaa sidii ay Diaz u keentay Ruben Diaz waxaad moodaa inay kooxdii bay isbedeshay when was the last time goal laga dhaliyay City maxamimka clean sheet after clean sheet weeyaan Diaz very good teamkii oo dhan uu soo kicay marka Man City waxaad moodaa seasonka inay iyaduna saa ku dhamaysan karto Liverpool difaacyadooda dhaawac badan baa soo gaaray marka way u baahan tahay imka Liverpool haddaanay center back keenin waxaad moodaa inay haddii sidaa ku jirayaan kooxaha waaweyn markay la ciyaarayaan difaaciya awoodda badan marka Liverpool difaac way u baahan tahay marka kooxahan islaayay imka waxay u baahan yihiin waa Liverpool Arsenal iyo Chelsea saddexda kooxoodba inay meeshay taageen iska soo qaadaan oo wax ku soo daraan walow aanan garanayn ciyaartoy aan Diego Costa ahayn oo kooxaha soo kicin karo banaanka joogaada Arsenal haddii la teamkii ka bilaabo Arsenal kooxdeeda defenderkeena waa maaragtay waa hit and miss marmar waa kuleel marmar waa qabow waa inconsistent like haddii la dhaho Pablo Mari ama Rob Holding la ciyaarsiyo for me aniga waxaa soo gada lahay guyga u ciyaaro Southampton Yannick Vestergaard guyga weynka Danishka waa 6'7" very good ball player before madaxu ku ciyaari jiray like hadda now Ralph Hasenhuttl he's now wuxuu tababaray inuu ku ciyaaro kubadda dhulka mugtahay so haddaa fiirsanaysa Southampton defenderkooda guyga weynka very good so even Liverpool hataa hadday defender rabto waxay soo qaadan kartaa Vestergaard iyo Matip together it will be very good like in adil Arsenal we can also buy him like in hadda the problem is January qof oo waxaa jiro 20 milyan u qalmo laakiin waxaa laga gadaa 54 60 so business is not very good waxaan akhrinay subaxdaanayti Manchester United waxay finally confirmation samaysay Giallo guyga laga soo gaday Italian team Atalanta Giallo so waa winger mugta baalalka ku ciyaara laakiin Manchester I feel like Arsenal amal markii la dhaho transfer I don't know why that waxaan nahay two big clubs history like in recruitment keen iyo wax gadasho waa it's not very good I don't understand team yaal waxa ka saa Leicester Southampton oo naga aqli badan oo ku soo gadaya guy 1 million hadana waxay ku sii gadayaan 80 90 even 100 million like Arsenal iyo Manchester they have the money like in waxa la eriyay aad ugu carooday Sven Mislintat guyga maaragtay oo laga keenay Jarmalka waxa la dhihi jiray waa golden eye ninkaneeto wuxuu arkaa he sees amazing players mugtay so wuxuu keenay playeryaal fiican statistics ko fiiriya basket sameeyeen madaxa ku dhaliyeen right foot left foot analysis badan oo sameeyaa laakiin waxa la keenay Raul Sanelli laga keenay Barcelona guygaas waa old school waxa waaye envelope baqashada isoo dhiib
2 milyan dhexgeli waxaa aadaynaa baasta soo cunaynaa geeska hay waa kaasaa transfer fee iyo hooshaaseyti that's why waa la buriyey recently because apparently asiga iyo qof kale la buriyey waxay sameynayeen waxa maaragtay waa musuq maasuq iyo corruption iyo waxaaseyti baqshadaa la wada every 2 minutes iyo suitcase waxaa malaysaa Scarface movie sheekada waa Narcos hooshooda waa waalan so markii la dhahayo transfer iyo recruitment system teamyaal badanaa jiro Premier League ugu fiican Leicester for me waa amazing Yuri Tillemans ku jira teamka amazing player waa fiisi jira markuu ciyaari jiray Anderlecht markuu yaray asiga iyo Lukaku waxa soo gadatay Monaco after Monaco kabacdina inta la keenay so markii loo player way jiraan the problem is profile lama fiirinayo every time waxa la rabaa 75 million player 85 million player all the time players for example Pepe uma qalma 72 million pounds waa 25 ama 35 maximum Also, Arsenal waxay soo gadan kartay N'Golo Kante from Leicester for an extra 2 million. 2 million kala extra la rabay way diida Arsenal. Waxay leeyihiin hey, it's too expensive. Granit Xhaka ku soo gadanay lacagtaas. Xhaka ma ordi karo. Geeska ma fiirin karo. Waxa uu moodaa waa fridge, waa falanjeer. Kubadda dhaxal. Markuu jeesana waa slow weeyaan. Markuu qofka maskaxdiisana tamaam ma ahan Xhaka. 10 game waa 10 red card hal game wuxuu ka soo laadaa 70 yard nasiib way galaysaa top corner waa amazing player I'm telling you taageerayaashana waa maskaxdooda tamaan ma aan saaxib also Manchester United iyo Arsenal hadda waxay isku xogsanayaan Yves Bissouma u ciyaaro Brighton also xataa Tariq Lamptey u ciyaaro Brighton waa guyga right back wiilka yar oo Ghaneska ah like hada Ingiriiska u ciyaara la tahay waa very good right back hadana also Bissouma I believe in u ciyaaro Mali or like a very good player Bissouma unbelievable Chelsea aragta Manchester iyo Arsenal baa u dhow I don't know hadda hadii January ay soo gadan karaan but something ay ka hadlayaan plus kooxuhu intooda badan lacag ma haystaan kooxaha yarna hadday cid gadaan xilligan ma soo iibsan karaan صح waxaan u malaynayaa January wax bri ah mooyaane inaanu dhaqdhaqaaq badan inaanu jirin kooxaha waaweyn oo dhan even though you never know hadhow waxa dhici doona laakiin waxaan filayaa dhaqdhaqaaqu inaanu sidii u ahaan jiray January-yadii hore kooxuhu ciyaartay badan la soo wareegi jireen صح inaanay la soo wareegin I think صحيح ila tahay I think waa ina samarka maaragtay markaas ay business fiican la sameeyaa لكن also waxaan akhrinay yesterday Arsenal was cooked kooxdeena aniga waxaan ahay koox manihin waxaan ahay business organization mugta waa ganacsi let's be honest manihin we know we're not a football club anymore football nimo waxa ka soo baxnay marka ka soo gurna Highbury let's be honest yeah Arsenal dawladda Ingiriiska waxay weydiistay 120 milyan oo deen ah loan waa la siiyay so the funny thing is guyga maaragtay oo hadda Arsenal leh Stan Kroenke he's very funny guy because lacagtiisa waa lacag badan wuxuu qabaa LA Rams iyo team kale oo qaba America ku qaba laakiin asiga iyo teamkiisa laakiin team yaashiisa waa dad oo maaragtay waa qaacinyaal very bad liars because waxay dhaheen the Rams they said because the Rams waxay joogeen St. Louis I think and then wuxuu dhahay St. Louis lagama sii you're not going anywhere inta joogeena after 2 years or whatever waa la soo guri I think LA also guri so the guy cannot be trusted also a lot of people waxay aaminsan yihiin wiilkiisa Josh Kroenke inuu kubadda cagta jecel yahay asigana inuu jeceleenin like asiga waa very in my opinion very embarrassing owner waxa qabnay Alexey Uzmanov guyga Uzbekistan oo Russianka Muslimka ah hadda guygaas wuxuu u guuray Everton that's why Everton lacag fiican asiga iyo Fahad Moshiri so wuxuu gaday 39% Arsenal he's now spending his 39% even more on Everton waxa la waa sleeping giants because history marka la fiiriyo Everton waa club maaragtay history fiican leh in my opinion Everton waxay ka history fiican tahay Tottenham maadaama inta diriskeen nahay nacabnahay I'm not maciilay laakiin waa facts so Tottenham waxa ka weyn Newcastle hadii la history waxa ka weyn Nottingham Forest waxa ka weyn Everton so teamyaal badan ah jiro oo history leh even Leeds United waxay haystay player fiican Rio Ferdinand Mark Viduka Marcus Redeby koox unbelievable Harry Kewell Robbie Fowler hey عادي maan لاعب صاحب okay so hadda waa kasii gudbaynaa okay teamka hadda galina waa West London neighbor na leeyahay waa the Blues Chelsea
ama sida u taqaan Chelsea اللي هي maadaama Russian owner haysto wax kasta iskiya lagu bedelay so Lampard sheekadiisa iyo transfer maxay kula tahay 200 iyo hodho ala maraya no tactics yeah I think there was time like laha the day Leeds ka badiyeen inay noqdeen first horyaalka Chelsea baa qaadaysa oo dadkii ka wada hadleen oo nacam qaabkii u ciyaarayeen iyo wixii dhan as soon as team top 4 amba top 6 amba top 10 ay la ciyaaraan waxaad moodaa ciyaartooda oo dhan in la waayayo marka taa waxaan u macnaynayaa first qaab ciyaareedkiisa oo aan imka Kai Havertz oo kale ciyaartiisu aad bay u sareysaa laakiin waa sid Ozil oo kale Ozil haddaad corners ka ciyaarsiiso ma ciyaarto ciyaar number 10 haddaad ka ciyaarsiiso ciyaartiisu soo baxdo oo arka ciyaartooyda cararaya iyo qaabka kubadiisana aad dhexda uga baasa marka ninka booskiisa kama ciyaarsiinayo Werner laftigiisa corner uu ka ciyaarsiinayo iyo ninkan uu xaq hore target manka uu ga dhigayo imka duu Giroud la ciyaaro waxaan qabaa more Giroud inuu la ciyaarsiiyo then ciyaartooyga yar Ingiriiska magaca lagu ciyaarsiinayo Mason Mount ciyaaro badan oo isaguna si fiican u ciyaaro way jiraan laakiin ciyaaro badan oo uu baahneen ba jira but every single game hadda xataa ciyaartooyga ciyaarsiiso uu daalaya si fiican ciyaarsiina uu ku jira marka Lampard ma ciyaarta teamkaas galay wixii ay sameeyaan ku badiyay mise ciyaarta bedel amba tacticalka teamka wax ka bedel haddii ciyaartaas ay inta uu ku bilaabay ay badiyaan nasiibkiisa laakiin ciyaartaas hadday u baahan tahay coachka maskaxdiisa ma coach maskaxdiisa ciyaarta intuu wax ka bedelo oraa ciyaar wax ka bedelo 2-0 saddex ugu bedelayaan plus teamka ugu hooseeya maanta Premier League iyo teamka ugu sareeyo Liverpool amba Manchester wuxuu doonayaa inuu qaab ciyaareed kula wada ciyaaro صح وهذا اسكو سوق شدن وريجين كو نعم تيم كو ugu hooseeyay energy ma waxba ma hayaan meeshii taagtaageen din ciyaartii ba doonta ciyaarto wad wadinaysa and then the same information the same players that kula soo gasho صح Liverpool Man City in maxaa ku dhacay in meeshii taagtaagna Liverpool Man City garoonkiisa wixii ku dhacay weyn ogeen Arsenal mar dhawaydo 7 games aanay badinin like Tottenham oo kale game kale ciyaarsi 2-0 ba looga badiyay laakiin Arsenal ba haysatay they were playing still oo ciyaar fiican oo badigina way dadaalayeen laakiin Chelsea marka laga badinayo xataa ma ciyaarayaan imka Man City first half 3-0 ba first 30 minute miya hal good may isku dhiibeen attack ula shoot on target may sabid all 45 minutes garoonkooda way ku ciyaarayaan embarrassing sahib embarrassing I think Lampard marka hore ma sheegay waa coachka kooxaha waaweyn coachka ugu horeeyay la eriyo waliba time-kan waxa loo siiyay intan uu sii jooga because magacu Chelsea ku lahaa صح Chelsea halkan imka ay maraysa Hazard bay iidiyeen ciyaartooy may keensanin haddana last year 8 points bay ka sareeyeen imka meeshay taagan hoos dhac oo soo galay Chelsea laakiin hadii hoos la siinayo صح it's more about the coach than the players I think I waa kugu raacsanahay also sida u sheegtay markii la formation iyo saameysan they don't have ID wuxuu rabaa inuu copy gareeyo tiki taka every team 4-3-3 okay anigana 4-3-3 also Timo Werner I think inuu good player yahay Kai Havertz maadaama la siiyay Nanes nickname Shy Havertz maadaama pitchka la arkeenin waa inuu xataa biro khad qaado guyga isku bedelo maxaa la guyga oo Bayern Munich Goretzka ma lahay was it that guy over one season the guy on a hilibka faraski waxa sayti guygan waa hada good عادي ما أنسى six pack اللي يقول لي مضحة wow crazy like in Kai Havertz market la Premier League wow a little bit lightweight like هذه في Chelsea ID ما قبته also the other big mistake Chelsea SMSO was they let go Ruben Loftus-Cheek for me was a very good player هذا أوبانيين guy was 6'3" he reminds me of Abu Diaby style كيسة كوبادو وحوك كيني كراه his own half he's like Yaya Toure عمل وقت اللي كراه he scores goals هذا حلقة Fulham for loan Chelsea لعب بدن وحكي سميسا also business حاجة لون وحكينا سا 100 player أو المير لون يقلنا سا كبعدنا 50 million 20 million 30 million كوكا ذيسا that's their business that's why very good في عن academy wise لكن مركل هذا team كا وحقوا بهنيهن someone like Ruben Loftus-Cheek أنا جو حوان سوي إلى هاي وحدي like come back from loan from Fulham because هذا already he has experience the last season team كلا لقي now he has to come back in my opinion because he's a very very good player also مرة injuries ما في عنه لكن هذيل الله
player or midfielder ka qaaday kubadda ku soconaya goolka dhexdiisa waa asiga. He's very good. Like you're right, Timo Werner winger maahan. Tammy Abraham waa inconsistent. Waxay u baahan yihiin a player oo maaragtay goal dhali karo. Someone who's a very very strong goal scorer. For example, markuu Diego Costa imaaday Chelsea, markii he was amazing. Everything oo taabtay waa goal. Like I think Chelsea way ka tala waxayna la tahay managerka inuu is his fault asiga in la eedayo because halaas lacag aqrash gelisay and you're still performing below other teams oo maaragtay halaas lacag spend gareenin. So I don't know wallahi. Like I think in a hoos u dhacayaan. I think also hadii Arsenal hadda soo kabsanay prediction asameynay ina ka kor marayna Chelsea I think hagee markii la dhaho isagoon bilaabin iyaga Chelsea ka sareeyay Arsenal ba Chelsea ka sareeyay I think like in hadda saaxiibayaal badan WhatsApp group qabsa WhatsApp ka horta 7 weeks waan ka baxay maadaama maaragtay waxa I was very embarrassed moogtay Manchester United gaayasha London joogay iyo meel kasta cousinyaashiga Sweden iyo Jarmalka every 2 minutes haye Arteta Tony Pulis number 2 waa fake waa fraud sas I'm telling you I had to block everyone hadda waa soo dhaxgalay like in picture waan dhahaybade in videogayga ugu dambeysay daabatay mooyaan Arsenal markay 2-3 game badiyaan dadkooda wanaag hadda qofkana aanay garanayn way salaaman hi going on seven games صاحب waxa ahayn dead man walking صاحب heer aakhirad I'm telling you zombies are loo socday yeah so now we've come back like and however really confident ma ihi madama because I don't know which Arsenal maaragtay imaanaysa gameka one day we play good the next game waxa ciyaari karnaa against West Brom and lose who knows again you know so that's the thing okay the last point hadda galayna waa Manchester United okay Manchester United your number 1 spot season kan maray kartaa Premier League maxay kula tahay what's your prediction I think unless Liverpool ciyaartoygooda dhan u soo wada noqdaan mooyaane sidan markii hore saadaaliyay waxaan Liverpool hadday soo qaadato Thiago Alcantara ciyaartoyga waxa caafimaad qabaan it's going to be Liverpool Manchester United laakiin the way imka u socdaan Liverpool Van Dijk ka maqan yahay ciyaartoy dhaawac kaga jiraan Jota oo aad moodaysay inuu kaba khatarsanaa wixii meesha u ciyaarayo 9 goals brilliantii ciyaariyay uu isaguna ka dhaawacan yahay hadda waxaan qabaa unless waxa dambe iska bedelaan mooyaan Manchester United maadaama isku dhibcayihiin ay 3 game na waliba Manchester United inaan tahay qaabka u ciyaarayaan in Manchester United hadda saadaasheedu iyaga qabaan in horyaalka ku guuleysanayaan like a lot of Manchester United in a experience high stand because they feel the team members had the jogo for example Liverpool last season was so qad the cup okay we had the Premier League Champions League that kind of waxa hastan experience waxa city like Manchester United misled the high koox maaragtay because the problem is the last 10 games of the season team yal qaar way soo kabsanayaan they go past you wala dhafa like qaar waxa jiro like in for example like Tottenham amal ama Arsenal ingiriiska waxa la waa bottlers waa dadka maaragtay number 1 joogan 5 weeks ka bacdina hoos u soo dhaadhaco markii pressure la geliyo so do you think in a maaragtay pressure ka city are they used to it can they win ama way ka jabi kartaa actually no because players go into the but the pressure ka la may qabsanin ba hadda waxaad moodaa experience ka Bruno Fernandes la yimiday so aad moodaa inuu ciyaartay pressure ka xijin kare uu yahay mentalitygiisuna ay ka sareyso mentalityga in ciyaartoyga Manchester oo dhan oo aan happy ku ahayn haddii xataa iyagoo badiyay gool yar ku badiyaan amba ciyaar xumo ku badiyaan Pogba oo kale haddii ciyaartiisu soo noqoto uu ciyaaro waa world champion which means pressure wuu xijin karaa oo World Cup final buu ciyaaray ciyaarkii weynaan jirin Champions League final buu ciyaaray oo ciyaarkii weyn jirin Cavani oo kale waa ciyaartoy horyaalo badan soo guuleystay waa ciyaartoy ciyaaraha ugu sareeya soo ciyaaray marka saddexda ciyaartoy haddii leader bay u baahan haddii leaders u noqdaan oo ku wada jiidaan maybe inay pressure ka xijiyaan but still waa kooxan aan qabo pressure kaas hadhow la soo haro because hadday noqoto 3 points or 5 points inay kala sareeyaan points yar oo la isku soo gaari karo pressure kaas inuu qayb weyn ka qaadanayo waa run waana shakhsiyan waxaan qabaa inaan pressure kaasi unless saddexda ciyaartoy soo sheegay ay ka saaraan kooxda oo ay jiidaan mooyaane aan Manchester United xijin karin wasiirka Rashford oo kale Martial oo kale maaha ciyaartoy weerarkoogaasi soo arkay the pressure kan iyo horyaal sida loogu guuleysto laakiin hadday saddexda ciyaartoy jiidaan dhibcuhuna ay yar bataan
like 7-8 points hadday noqdaan I think they would be fine laakiin haddii 3 points iyo 2 points ay dhibco ahaadaan oo istaba taagnaado way ku adkaan doontaa oo waxay noqon doontaa wax ay Liverpool faa'iidadeeda leedahay ama Manchester City I think hadii la fiiriyo I don't know if Manchester United this season in a right karaan anigu my prediction waxay tahay 1 Liverpool 2 Manchester United 3 City so the reason why City oo dhahay City also had way fiican tahay laakiin City also are very unpredictable also City na maxaa lahay teamyaasha markay u tagaan away from home markay la ciyaaraan for example teams like Wolves iyo West Brom iyo dadkaas waxay ciyaaraan kubad different Wolves obviously kubadooda way fiican tahay Nuno waa very good coach playeryaal fiican ay keeneen waa technically even fanaanadooda xataa hadda waxa lagu bedelay one of them the third kit waa Portugal Portugiiski Portugal aadi weyn team waxaas dhahay is this joke waa wax kaftan miya like waa legit waa wax real laakiin he's bringing everyone from Porto Lisbon so markii la style European style football Europa League ama Champions League عمل style كودي سفي عنه وش بدن so I like Wolves team في عنه واي لكن yeah so I think Liverpool won in a will see right this season again and then it's between Manchester United and City لكن وحيلتها United in a سفي عنه وصو كبستي also United had the pressure بدن ما هاي so هذه الفيريو because a lot of people like أنا عمل we don't believe in them ما أمن سنة إنه واحد سمين كران so من مرة صاصح في يعني اللي بروها I don't think إنه راي كرتيت وراي هذي سامك like هذي اللي oh championat هاي but more pressure you know كوكوري so هذا you cannot perform like yeah so I think this season like a season وحيلتها هاي oh very very unpredictable Corona هنجرو no one's prepared أفضل بمسكحتي mentally I don't think they're in the game half of the time like we'll see definitely and the last thing هناك على شيء بفيديو نسميه هوتا كسابسن Globe Soccer Award لو قبت دبي صاحب كذي مركا فيديو قاعد في الصدي I disagreed with your points ما دام هذه but I understand why Ronaldo لسي مارتي حدقة the last 100 years the best player I think إنه حد هذه ومقلمه لكن أنا وحيلاتها هاي مركي لو أصيغ ميسي مركي لسأك ديجو هذه لده on paper يا في عن أنا رونالدو وحير في عنا لهاي I would give Messi 99 Ronaldo 100 because Ronaldo وحو عياري in 3 very very high leagues أوكي عيار هذه فيرست وحلقة كان Sporting Lisbon Manchester United he was unbelievable و top player مركو إما فلانة دي سي ساسي هيد within 2 years صاحب he was very strong and then he was very consistent very hard working مركي لفيريو also goaliash and then on top of that Portugal Euros he helped them a lot also Portugal هذه اللي حتى كوح let's be honest Portugal national team or Ronaldo قفك لما جوجا at the moment there's no one else لكن so مركي لو قارن كيسه ووح في عنه لكياني هذا Champions League I think شان إنه راي 5 Champions League ميسي نوا أفر لكن ميسي all his life وحو جوجي وحو كي مع the Newell's boys in Argentina Newell boys okay مع مركو جرى تمين لح Barcelona okay وح I will give you the growing hormones مادام وقاب ناي hormonal see everything so I understand why you ماشي وجوجي لكن هذه لفيريو لا ليغا إيو Premier League هذا still even Serie A this guy 3 leagues وفي عنه صومري also Messi وحو جوجي Barcelona was the best of the best لاعي هايستان who's in the Spanish league in the last 10 years has been between Barcelona and Real Madrid أصل كود history كود وفي عنته لكن هذه في التاريخ ذي ريال مدريد وحى هيسجري بقرك أو سبين ما دام أساسي لعب كهلن so بقرك سبين وتيم كيس ريال مدريد بلانكوس so مركي لو سانتاندير مركي أوتجاين بنجيجا لون ولا سيجري easy لكن تيم يالك على جو يجري في عناية سيلتا فيجو هذا ويسوق بسفر لكن long time ago very good team هاجرتي هذا واحد جوجي تيم يالك على حتى في عنين هوسكا إيو أوساسونا حتى مارتي ريال سوتي تاريخ في عنه هاي لكن هذه الليغا و Barcelona Real Madrid Atletico recently was over the last 10 years yes like in before that Villarreal maybe like in competition في عنا هاي and that's why I think Ronaldo أو في عنه هاي Messi because he was able to play in صدح league أو في عن and still very high level points كاغو points في عن ويان but still ماكو ورع سني واي رونالدو وحي من Manchester United or still league going granite Manchester United they are one of the best players isaga horti okay ومش واحد شوقي ده تيم كوجو في عناء ومانشستر يونايتد روي كين بوجي من ماشى ويانجيكس بوجي من نعم مانشستر أولي تيم كده فانستروي بوجي من مانشستر تيم كده بسين and same year I think or the year after Rooney نوالك
keenay صح Manchester United teamkeedu wuu still waxay qaadaysay haddaanay sanad horyaalka qaadin Manchester United sanadka ku xiga 3 jeer isku xigay qaadaysay صح like Gerrard Ferguson intii ugu dambeysay 3 jeer bay qaaday marba Arsenal qaaday haddana 2 jeer bay qaaday haddana Arsenal ba qaaday Arsenal Manchester waxay koox horyaalka markasta qaadanaysa صح Ronaldo top scorer nuu soo hayn intii hore oo dhan and his final yearkii ka horreeyay yearkii Real Madrid ahayd inuu wareego ee aanu tegin that was yearku gool dhalinta qaaday the only year uu ku qaaday top scorerka Premier League 30 gool sanadkaasina wuxuu sanadkii ugu horreeyay uu goolkiisa ugu horreeyay Champions League dhaliyay صح nacam wuxuu joogay 5 sanadood sanadkii afraad buu Champions League goolkiisa ugu horreeyay dhaliyay oo Roma ka dhaliyay waliba quarter finalkii ahayd mise top 16 ka ahayd صح waxa ku walaas muddo Ronaldo wuxuu isbedelay markuu Real Madrid ku soo wareegay ayuu wuxuu isku bedelay inuu noqdo ciyaartoy dhaliya season kasta 40 gool 50 gool صح Manchester ku joogay sanadkiisa ugu fiicnaa wuxuu dhaliyay 42 gool kii ku xigayna 33 gool inta kale ciyaartoy 20 gool iyo 10 gool joogo I know Premier League uu qaaday laakiin kooxda Premier League la qaaday waxa koox qaadayso already markii isaga sanadkii soo gadanaysay Premier League champion they were the champion and then Real Madrid buu yimiday 9 sanadood buu Real Madrid ka ciyaaray صح La Liga 2 sano kaliya uu qaaday 2 times Messi wuxuu qaaday intaasi 6 jeer halkuu ka qaaday Atletico Madrid hal mar ka guuleysatay and then Ronaldo hadda haduu tagi lahaa Inter oo AC Milan oran lahaa champ waxaan soo qaadayaa Sarayada amba Champions League then yes waan aqbali lahaa laakiin wuxuu tagay Juventus oo already 7 jeer oo isku xiga horyaalka Talyaaniga qaaday صح no 7 dambe isaga la qaaday labadan no 6 dambe la qaaday miyaa hadii fiiris markuu Manchester joogay okay wash waa ku raacsanay pointiyaasha maadaama Ryan Giggs uu joogay waxa Ryan Giggs afartan oo retire ku sameeyay laakiin markaas ay Sir Alex Ferguson waa teamkii inuu team kala sameeyay for example Van Nistelrooy wuu baxay dad badan aa baxeen so again team yaasha waxa joogay Darren Fletcher Park Ji-sung Wes Brown asagana wuxuu ahay main person so I think it's not fair maybe laha oh team already high or tagay because at the same time yeah Manchester United wax way raanaysid like in team code on paper is badal badana ku dhacay and he was still very consistent I know Champions League goal for the first time in maybe 4 years or so but I still think madamo ka ciyaara Premier League for me was one of the most competitive leagues that is what I'm saying is not top competitive 6 no just look Messi goolasha top 6 ka kooxaha Ingiriiska Premier League ku jira Messi iyo Ronaldo yaa gool badan Messi kama ciyaari Premier League Messi baa ka gool badan top 6 ka ciyaar teamamka Arsenal Manchester United Man City iyo marka la isku daro goolasha uu Messi ka dhaliyay iyo Ronaldo intuu ka dhaliyay Messi intuu ka dhaliyay ka badan and how many times he faced the Premier League kooxaha ugu sareeya isma laha because Messi markasta uu Arsenal ka soo horbaxo wixii ku dhacay waa darkiisay Man City wixii ku dhacay waa darkiisay Manchester United the same even though Chelsea aanu goolal badan ka dhalin but still 3 gool buu ka dhaliyay last game ay kulmaan last 2 games markii ugu dambeysay kulmaan so that's the reason I'm leeyahay Messi haduu imaan lahaa Premier League still madamo markuu Arsenal iyo Manchester iyo City iyo Liverpool way arkinay 2 gool buu ka dhaliyo xasuus leh even though laga badiyay laakiin si fiican buu ciyaaray ciyaarta so kooxii waaweynaa Ingiriiska markuu Champions League kula kulmo uu ka dhaliyaa kooxaha waaweynaa Talyaaniga markuu Champions League kula kulmo uu ka dhaliyaa mali doodii kuma saabsan aanu Ronaldo Messi hadii la soo barbar dhigo always Ronaldo team ban صح also Messi Barcelona team fiican ugu imaaday because maadaama waxa aad pointigaadi Ronaldo team fiican Messi Iniesta haystay Ronaldinho ku bilaaway Rijkaard jooga mugta so asagana wuxuu ku soo barbaaray team maaragtay oo adag oo very strong Thierry Henry fiican buu la ciyaar oo Xavi Iniesta no Messi team very high uu la ciyaar taas way because teamkiisu hadda markii aan u fiicnay sidii berigi hore waa tan Barcelona wax ku dhacay wada arkaysa kullu Liverpool dhiibisa Corona Roma saddex dhiibisa kulba koox baa dhirbaaxaysa laakiin ciyaartoygii boqolkii sano ugu dambeeyay marka la leeyahay ciyaartoy kala meesha jooga Cristiano Ronaldo the Brazilian Ronaldo Zidane jooga waxaan ka hadlayaa Xavi baa jooga Xavi laftigiisu ciyaartoyde Iniesta jooga ciyaartoy badan oo u baahan in meesha la soo geliyo tartanka because waxaan u qiimeyn waayay
inaad aragti mooyaane top 3 la soo dhigay meesha Ronaldo wa Messi wa Salah xaguu ka yimid Whoa, Salah. For me, Salah, well, I was very confused. But the problem, soo galay ciyaartoyga century-ga ugu fiican Arab Salah. That's why Dubai Digo, sir. wuxuu ku socdaa maano nacam وعرب نما لو كان because Dubai Globe Sports Award ومقتى so that's why like وكو رعسنا مادام هذه الأوضاع بدنا جري because هذه في generation كماكا so بربارة لابد كون إياه because أنا واحد بشيء كون سجال بقولي سجاشين لابد so 92 so مركا واحد رونالدو واحد ركوبا ندفيد دافيدز محل أدريانو that all has unbelievable that one of the reasons يمكن رونالدو ميسي because competition ke 98 ki 2001 ki competition ki jiray like 5-6 years ba waxa win gareeyay world player of the year 5-6 different players صح Rivaldo Vigo Owen inta ciyaartoy meesha joogay Nedved Shevchenko inta ciyaartoyga tabtami jiray plus difaaciyada joogay bariga Nesta Cannavaro Vini Costa Curta Sol Campbell Lilian isku mid ma ahayn marka waxaan leeyahay imka xagga percentage-koogu high ka ahaayeen nimankan haddii still ever Ronaldo la siinaa la oran lahaa Ronaldo wuxuu helay 14% Messi wuxuu helay 9% and then Ronaldo Zidane and then we go like that then I would say okay fine maybe ما يهدي yeah okay I think conversation were very big you know at هذه الفيري مع Messi and Ronaldo only بقول لك سنة وكل سنة سفيان like أنا مرة كده كده oh my Messi أنا وحنا Messi listen this guy was talented إلهي يا بسي وحنتي was Messi training مع ذا for 2 years and he will still be amazing right Ronaldo was all to say was hard work وحسيت مكتب روتينه that's pretty different but the only reason why I didn't like Ronaldo وحيريس وقف في عينها is because سدح ليك في عنه كعياري also very consistent هدنا national team كي سووا حول الرأي because remember Ronaldo Copa Libertadores final كا ده Messi وحكراي Alexis Sanchez Chile penalty shootout ومس جري if you remember in the South American Cup so ومس جري so I feel sorry for Messi because وضن كي سدان قربها لقى صاري you know رايو لكن it's not only him هذه الفيريو on paper Argentina وحكا في عنتها 10 times better than Portugal even now because Portugal had a coffee عنه مجوج except Ronaldo. No, Bruno Fernandes bad joga واحد Bruno Fernandes joga واحد joga Silva from Man City and هذا team كي هيستو Portugal aad buu ka fiican ciyaartoydan Wolves joogo qura ka fiican ciyaartoyga Argentina jooga ma haysato Argentina there was time ay Di Maria oo fiican haysay Higuain Aguero oo dhexdooda Milano yar I would say 2014 and before that inta doona ma ka fiican laakiin Portugal from 2012 World Cup ugu dambeeyay Costa iyo Figa iyo ciyaarayeen Deke iyo hadda sanadii ka fiican ma jiro hadda I think after France marka laga tago iyo Germany maybe Portugal waa team kasta ugu fiican hadda ciyaartoyga ay sanado dhexdooda way fiican tahay I think midfield markii loo si fiican like I think the problem Argentina ay qabtay waa weerarkooda waa too heavy waa unbalanced team ay mugtahay because weerarkooda benchiga jooga weerarna waa taqaanaa defender ma jeclo they don't like to play in midfield in defense hey teamka caawi saaxibna caawi no I'm only striker al laha so I think in that sense Argentina haddii Messi oo la raay lahayn Argentina even Copa Libertadores ama wax saas I would give him the thumbs up like maadaama la raay national team ka oo success la helin hadana maadaama ka ciyaar in Premier League maadaama Premier League the last 20 years one of the best league saasa maadaama Ronaldo hal point year oo ka horeeya in my opinion but haddii la dhaho natural talent hands down Messi that's waxaan anigu u leeyahay because imika Premier League kooxoodu markasta waxaan ana Premier League ka fiican Premier League ka adag hadana Champions League marka la tago kooxaha ugu badanayo waa Spanish iyo Germanka sax Spanish ka ugu badan si fiican Spanish Real Madrid iyo Barcelona weeyaan waxa qaadanaysa balkii ugu dambeeyay like last 15 hadaynu dhahno 9 of them yaga qaatay like maybe La Liga the reason why okay I think this is my conspiracy theory right the reason Spanish teams ee markasta Champions League ku raaynaayeen because liigooda waa boring saaxib waxa tagaysa Osasuna Huesca waxa tagaysa teamyaasha saas amal Celta Vigo they don't even have $1 saaxib
So Messi benchiga la fadhiisanay Iniesta benchiga la fadhiisanay waxa ciyaarsiinaa ilmaha yar Ansu Fati kuwaas ciyaara markii la Champions League markii ma dadkan waa fresh Ingiriiska every week waa dagaal waa lugta la jibinaya waa intensity is very difficult but then there's no winter break ma haystaan dood baan taa ka qaba you know why European League marka la ciyaaray or Champions League just look at this Atletico Bilbao it's a field teamamka yararaya Spanish markay yimaadaan Europa League Manchester United Arsenal any team English ka yimid hadii la ciyaaraan yaa badiya Spanish teams waa nasiib dara saaxib no and they play wallahi kubadti ka taaka inta la ciyaaraan inta doonaan I remember this one time as Mallorca wa Champions League Arsenal waxay haysataa Henry waxay haysataa Vieira waxay haysataa Gilberto Silva naam the best Arsenal team Mallorca for the first time ay yimaadeen Champions League 2-0 Arsenal u dhiibeen waliba kubadana way taaban waayeen so Spanish teams always markay Ingiriiska la ciyaarayaan like I would say 70% teamamka yaray Spanish ka badiyay Ingiriiska and then markay team yaro Spanish iyo team yaro Ingiriisi sarkaana hadalkeega iska daa Everton Wolves waa team weyn markay Ingiriiska joogaan haddii koox yaro Spanish la ciyaaraan dhagaa saldafigadas dhagaa ka soo garaacay yeah no waa ku garaacsanay I think playing style ka Spain waa heersana markii la lahawaad also Spain laguma dooranayo xoog ama orod for example Ingiriiska for the last 30 years waa lagu arkaa ninkan waa nin madow waa nin six pack isha kale okay first team lakin guy waxa arkaysa uu ciyaara for example West Ham amal I think he's okay I don't want to wax ka sheega lakin for example Mikel Antonio for example guy got into a bodybuilder like in technique ma hayo like Spain waxa jooga guy oo maaragtay lugteeda ka weyn like he's not even very tall waa qof yar Messi amal waa 5'4'11 alaabta tiki taka goal dhalinaya marka aragtay you think this guy waa la dhaawici karaa lakin waa amazing player but I think the mentality were very different but I still think though the Spanish league intensity just my opinion is not as crazy because Premier League lugta laga jibina every week hadana also you have to run oradka also waxa ka badin karto team in the bottom half you don't know so I just think it's a bit more difficult Spanish league I think were more tactical as well orad badan lama sameeyo Spanish league oo was like Serie A tiki taka la ciyaara for 90 minutes and then one hal bas ala salaha goal but I do agree markii la dhaho Champions League ama Cup Europe markii la maado Spanish team ka waa on a very high level mentality wise I even remember the game Atletico Bilbao la ciyaaray Manchester United wuxuu ciyaaray Llorente Muniain David De Gea goal laga dhaliyay like in the Europa League was unbelievable so I think definitely Manchester United so they do have some good teams I think Sanadi Ashanet is more balanced in the Spanish league I believe because we had like maybe 6 teams or good Real Madrid Barcelona Villarreal Real Sociedad had soo kacday xataa Atletico waxaad moodaa it's not balance koogu inuu fiican it's because Real Madrid iyo Barcelona hoos u dhacay meesha hoos uga soo dhacay that's why team kor ugu soo kacay but I think it's good for the league oo fiican tahay league una hadda waxay ku jirtaa 19 صح hal team baa ka hooseeya haddana maanta ciyaartii Real Madrid draw bay la gashay 0-0 may dad badan fiican oo ku jiro at the bottom half I think technically Spanish teams definitely markii la technique iyo wax ku fiican yihiin laakiin hadii la dhaho playerka lagu soo naqanayo hadda ku soo naqanayna pointiga or the last 100 years you're right I don't think dad badan jiro oo conversation kan into all usually let me say this too marka la dooranayo best player of the year like I would say last 10 years Ronaldo Messi kala qaadayeen it's more ciyaartoyga qof kasta uu jecel yahay because the dooranaya they just choose because qofkan bay jecel yihiin popularity because qofkan ba fiican because there was time Schneider uu xaq u lahaa inuu guuleysto markuu wuxuu qaaday Champions League wuxuu qaaday League Italianiga wuxuu qaaday Coppa Italy then wuxuu keenay teamkiisii finalka World Cup ka صح Wesley Schneider wuxuu qaaday Messi baa la siiyay for weird reason because that Messi bay jecel and then there was a time inuu qaaday Ribery because everything siga guuleystay Ronaldo la siiyay because of Ronaldo 6 gool buu dhaliyay naam intii dambe waxay isku bedeshay in ciyaartoyga wax la siinaya uu noqdo uu ciyaartay 50 gool 60 gool dhaliyay I remember this one time 2002 Ronaldo the Brazilian wuxuu maqnaa 8 months and then uu soo gaar haddana 9 months buu maqnaa wuxuu soo laabtay
World Cup in year core wuxuu ciyaaray 9 kulan buu ciyaaray Serie-da wuxuu dhaliyay 6 gool then 6 gool then 6 gool ka bacdi waxa la ciyaaray World Cup صح World Cup Brazil wadii Germany ka qaadaysay صح maxaa la siiyay waxa la siiyay World Player of the Year iyo Ballon d'Or kala isku raaciyay wow ma buu ciyaarin ba wow yeah no to be fair waa popularity contest صاحب waa markii saad u weyn jusisi haddii aad World Cup ka qaado inta Ronaldo Messi aanay soo bixin waxay sanadka World Cup ku jiro wadanka World Cup ka qaada one of their players ba xidiga adduunka qaadaya sanadka Euro ku jiro one of their players ba ayaa xidiga Europe qaadaya and then after that kooxdii Champions League qaada ayaa xidiga Europe laga qaadan jiray even Thierry Henry season ajira markuu Arsenal u dhaliyay so many goals like I was surprised 4 goals buu dhaliyay waxaanu lahaa 29 assist so then he assist عمله less than 10 goals probably need بدلي صح less than 10 goals and he had like less than 10 assists Champions League na kooxdiis may qaadan final bay maadeen waxa I think Juventus waxa ka raasay AC Milan I think AC Milan ba penalties kaga raysay صح Shevchenko yeah I remember laba ciyaarood buu soo badiyay Barcelona iyo Real Madrid buu soo reebay it was so that's it. Henry marka iyo mar Zidane la siinayay oo dambe ka dambeysay last one Zidane win gareeyo labadaba xidhiidha marka it's more waxaan and I think marka Zidane la siinayna Ronaldo baa la soo gaarsiinay wax la islaa yaani Latino ka badan European-ka so waa kugu raacsanay I think marka I don't know sometimes marka sidaa way waxaad soranaysaa halku xaq baa ma requirements kuma jiro qofka it's all about goal scoring qofka maaragtay publicity qof noo keenaya likes iyo Facebook iyo followeryaal iyo waxaasiti hadda waxa waa exposure mugta qofka halaas follower qabaa lacala hadii siino then asiga wuxuu noqon karaa like cod wano codeynaa so journalkeena follower so I think it's but hadii la fiiriyo boqol kan sano like there's been amazing players aniga waxay la tahay generation kan hadda maaragtay from 2006 ka hor ciyaartooy fiican soo ma bixin ciyaartooyaasha I prefer the old ones oo marka hore la soo dhaafaa jeclahay you know you had quality players also team kaste can you imagine Parma Serie A Cannavaro Lilian Thuram Hernan Crespo Adriano come on so hada like in kooxyaasha dad waxa laga gooyaa like 125 million ma u qalmaan saaxib ma u qalmaan markaas I remember markii Zidane lagu soo gaday 45 million waayan I was like wow ciyaartooy adduunka ugu qaalibanaya 45 kun waa amazing hadda waa 45 kun waxay ku goysaa Ward Prowse from Southampton no disrespect he's a good player like in 45 waa too much so hadda Pogba boqol laga soo bixiyay start no Johnson kan ma City difaaca ciyaara John Stone from Everton yeah John Stone I have 50 million kasoo bixiyay Walker ba John Stone 10 million kama soo also guy kale Everton soo gaday Richarlison Everton one season si fiican u ciyaaray waxa la keenay Palmeiras a Brazilian league 50 million baqal ma soo sorry for me he's a 30 million player Neymar baba almost 300 million laga bixiyay maxaa also Messi wuxuu rabay inuu ka soo tago Barcelona buu xal la saaxib hadda rabtini baxdid waa release clause kada waa $700 million saaxib yeah no I think Messi is leaving like this year markuu dhamaysto most likely hadda markii hore Man City bay u badnayd but Neymar wada ciyaaraan so since Pochettino uu qabsaday PSG maybe PSG you never know PSG waxay imka raadinaysaa Messi Villa Ramos Villa marka maybe inay kooxda soo yar dhisto oo my PSG waa haday fiiris style kooda sida loo maamulayo waa business oo ku saabsan xagga fashionka oo streetka urban ma fahamtay Jordan hada la helaan Jordan waa sponsor kooda fanaanyaal kala arkay ku saabsan Dior iyo waxa city so fashionki waxa city jecel yihiin laakiin waxa lacag badan laga helaa mugtay so lacag hadii la keeno Ramos hadii la keeno Messi even hadii free yahay only fanaanadiisa saleka laga keeni karaa 300 million so again PSG waa another club oo inay si fiican Europe usoo gasho like I don't know why every time marka Europe imaado laga raayo in really terrible conditions I think big step last year big step I final vitamin so that was big step so let's see ciyaartooyga kento iyo Pochettino project loo sameeyo next year inshallah si fiican did the best say helaan then who knows
who knows indeed. Okay, so showgeena saasa kusoo gabagabeynaya anigoo ah 252 Guna Corner halkan niga soo xiriira waa Cambodia so wax wanaagsan meeqa saac waa hadda waa 12:36 waa hada time for lunch saaxib waa qadaal cunaya Ego Show Football thank you saaxib waa mahadsantahay maadaama Idrusi la soo xiriirtay maanta I hope another show kala samay karna xataa as well another episode soon ku saabsan maadaama doodka naga dhaxgalay Real Madrid iyo Ronaldo iyo Messi like it was very very good so fadlan guys make sure ina subscribe to sameysid Ego Football Show Facebook حتى وقع as well make sure Facebook إني أو كلا سو حريت حتى like comment subscribe and share أساسا سكوجنا صاحب معك شو درس ليد هاي أصحابتي هذا أدبر السلام يا برنامج في عام وإن شاء الله نقول ورجينا لنا المركلة كسوم وغنوا يقولون إن شاء الله هاي تنفي عنه وكل هذا الني كل واحد بدلنا وكاكر رسمنا سبورتس كاي إن شاء الله إن بدلنا وكعرف عندنا هذه هاينا ودنا أنت وكسب بدلنا إن شاء الله سيف يعني إن شاء الله أوكي صاحب يلا أساسا سكوجنا هاي نبتقليو take care peace inshallah yes Purchase your track.